waxaan oo wanaagsan daawada meel walba oo aad joogtid ku soo dhawow barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka oo xiliyadan oo kale aad ka daawatid maracadda show qodobada barnaamijkan kugula wadaagi doona waxaa ka mid ah muxuu yahay isbahaysiga cusub ee ka dhanka dowladda Mareykanka maxaad ka taqaanaa ururka Shanghai maxayse tahay sababta dowladaha Ruushka iyo Shiinaha ururkaani asaaskiisa door weyn ay kaga ciyaareen qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona maxay tahay sababta ciidanka dowladda federaalka ee Itoobiya ololahooda dagaalka ay kaga bilaabeen deegaano ka tirsan gobolka Canfarta maxaa keenay qorshahaasi waxyaabaha soo dadajiyay iyo qodobo kale ayaan barnaamijka kugula wadaagi doonaa ay ka mid yihiin xiisadaha ka taagan deegaanada Puntland ku soo dhawow mar kale maracadda show iyo barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka guulo isxigay oo ay jabhadda Tigreega iyo xulafadooda oromada isbuucyadii ugu dambeeyay ka gaareen dagaalkii ay kula jireen xukuumadda Addis Ababa ayaa toddobaadkan dhamaadkiisa weji kale isu bedelay kadib markii ciidanka federaalka Itoobiya uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed dagaal rogaal celin ay ku qaadeen deegaano dhowr ah isla markaana ay la wareegeen magaalooyin dhowr ah oo horey u qabsadeen xoogagga mucaaradka Abiy oo hogaaminaya ciidanka federaalka Itoobiya garab militarina ka helaya maamulada Canfarta iyo Amxaarada ayaa ololahooda dagaalka ka bilaabay deegaanada Canfarta haddaba maxay tahay sababta keentay iskoorimaadada inay ka bilowdaan Canfarta oo dagaalka Abiy halkaasi uu ka galo maxayse tahay sababta ciidamada dowladda Itoobiya ay halkaasi u bartilmaameedsadeen marka hore xogo kale iyo macluumaadyo kale ayaan warbixintan ku falanqaynaynaa gobolka Canfartu waa isku xiraha Itoobiya Djibouti iyo sidoo kale gobolka Badda Cas ee Eritrea inkastoo ay u badan tahay gobollo oomana ah haddana waxa ay ka helaan muhiimad istiraatiijiyadeed oo dhowr ah oo ku aadan dhinacyada ku dagaalamaya gudaha dalka Itoobiya muhiimadda gobolkaasi Canfarta uu leeyahay waa isgoyska wadooyinka isku xira caasimada Addis Ababa iyo gobolka Canfarta iyo wadooyinka aada dhanka Eritrea sidoo kalena waxa ku yaala jidka tareen ee ugu muhiimsan ee isku xira Djibouti iyo Itoobiya kaasi oo qaada 97% badeecadaha laga soo dhoofiyo ama laga soo dejiyo Itoobiya sidaas awgeed qalalaasaha ku xiran ayaa dalka Itoobiya oo dhan qatar gelin karaya waana taas sababta koowaad oo ciidanka dowladda Itoobiya dagaalkooda ay kaga bilaabeen gobolka Canfarta muhiimadda sidoo kale xukuumadda Addis Ababa ay u leedahay qabsashada gobolkaasi Canfarta ayaa waxay ka dhigan tahay in ciidanka federaalka Itoobiya ay awood u yeelan doonaan inay dhabarka ka jibiyaan xoogagga Tigreega isla markaana ay jaraan wadadii saadka u soo mari lahaa taasi oo wiiqday gabi ahaanba awoodii iyo hamigii Tigreega ee ahaa inay weerar ay ku qaadaan Addis Ababa bilowgii ololahan oo ka bilowday jiidda hore ee gobolka Canfarta ciidanka dowladda Itoobiya ayaa ujeedkiisa waxa uu ahaa mid intaasi ka sii badan waxaana ay ahayd sidii loo dhimi lahaa dagaalka ku wajahnaa caasimadda Addis Ababa iyo sidii loo kala furfuri lahaa xoogagga kala duwan ee isbahaysiga Oromada iyo TPLF ee halkaasi ku soo xoomay maxay tahay sababta Tigreega uga laabteen gobolka Canfarta muhiimadda jabhadda Canfarta ee u leedahay dhinacaasi isku haya colaadda ayaa waxay keentay in jabhadda xoreynta Tigreegu ay isku dayaan in ay qabsadaan balse isku daygoodii koowaad way ku fashilmeen kadib markay iska caabiyeen kana hortageen maleeshiyaadkii Canfarta ee taageersanaa dowladda dhexe waana taas tan moraalka iyo niyad dhiska siisay ciidanka federaalka ee Itoobiya haddaba maxaa sabab u ahaa fashilkii Tigreega ka soo gaaray gobolka Canfarta dhulka Canfarta inta badan saxara ah waxay sahashay in hawada lagala socdo waxaana awood u siisay diyaaradaha dagaalka ee dowladda inay gaaraan hadafkooda oo ay si fiican u beegsadaan fariisimaha iyo goobaha jabhadda Tigreega ay ku sugan yihiin taasi oo dhab ahaantii dhacday isla markaana dhabar jibisay TPLF midda labaad in aan loo damqan qowmiyadda Tigreega ee ku dhaqan deegaanka Canfarta gaar ahaan kadib markii khasaarihii bini'aadanimo iyo barakicintii shacabka Canfarta ee ka dhashay iskoorimaadiyada ciidan uu soo noqnoqday 3 ila wareedyo dhowr ayaa ku waramaya in ciidanka Canfarta ee ka dagaalamaya halkaasi ay isugu jireen kuwa gaar ah oo commandos ah kuwa jamhuuriyadda ah iyo guutooyinka sirdoonka kuwaas oo haysta faa'iidooyinka iyo fursadda aysan haysan ciidamada kale ee federaalka qorshaha afraad ee dhabarjibinta ku sameeyay TPLF dowladda Itoobiya ayaa maalmihii ugu dambeeyay taageero militari oo xoogan ka heshay Shiinaha iyo Imaaraadka Carabta waxaana ay kaalin weyn ka qaadatay horumarinta ciidanka federaalka Itoobiya waxaana diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo la aaminsan yahay in Imaaraadka halkaasi uu geeyo kaalin muuqata ay ku lahaayeen bilowgii dagaalkii bishii November 2020 waana taasi midda dhabarjibinta ku noqotay labadaani dowladoodna ay door weyn kaga ciyaareen taageerada ay siinayeen ciidanka dowladda federaalka Itoobiya Shiinaha iyo Imaaraadka Carabta ayaana lagu waramayaa in ay dhabarjibin weyn ay ku noqdeen ciidankii jabhadda TPLF halkaasi ka dagaalamayay arrinta shanaad sida laga soo xigtay dadka u dhundoleela dagaalada Itoobiya waa ka qayb qaadashada ciidanka Eritrea ee ku sugan gobolka Canfarta tan iyo weerarkii labaad ee Tigreega bishii Luulyo ee la soo dhaafay arrinta lixaad
joogitaanka ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo jiida hore ku dhow ee dagaalka sidoo kale waxay sare u qaadeen niyadda ciidanka federaalka ee Itoobiya waxaana taasi gacan ay ka geysatay in guulo waaweyn la gaaro adiga maxaad ku dari lahayd qodobada kale ee ugu yaraan sababta oo in TPLF ay weyso canfarta falanqeeyaasha qaar ayaa hoos u dhigaya muhiimadda ay leedahay in ciidanka federaalka Itoobiya dib u qabsadaan deegaanada aan horey u soo xusnay maadaama ay yihiin magaalooyin yaryar oo aan miisaan lahayn balse xakamayntooda aad ay muhiim ugu tahay in lala tacaalo gobolka Tigreega iyo Amxaarada taasi oo qorshaha Abiy Ahmed u qorsheeyay ay tahay marxaladaha soo socda waa tan koowaad ee dagaalka nafsiyadeed maalmihii la soo dhaafay dhinacyada isku haya Itoobiya waxay bilaabeen dagaal dhanka nafsiga ah iyo faafinta dacaayado kala duwan si midba midka kale inta uga been abuuro niyad jabna ugu noqoto dhinacyada kala duwan ee taageeraya ama dagaalamaya jabhadda xoreynta Tigreega waxay baahisay muuqaal muujinaya maxaabiis aad u tiro badan oo ka tirsan ciidanka federaalka kuwaasi oo la qabtay ama isku soo dhiibay iska hor imaadyada dhacay muddooyinkii ugu dambeeyay taasi ayaa dowladda Itoobiya ay beenisay waxaana u aragtay propaganda la doonayo in lagu dilo macnaawiyadda ciidanka federaalka Itoobiya dhinaca kale warbaahinta rasmiga ee dowladda waxay baahisay bayaan ay ku sheegtay in 12 ka mid ah madaxda ugu sarreysa jabhadda xoreynta Tigreega toddobaadkii hore in lagu dilay duqeyn xagga cirka ah oo ka dhacday deegaanada waqooyiga Itoobiya taasina jabhadda TPLF waa ay beenisay inkastoo sidaasi ay warbaahinta hadallada isu marinayaan haddana waxay u muuqanayaan kuwo dagaalada Itoobiya looga adkaanayo ciidanka jabhadda TPLF maadaama ay waayeen fariisimo dhowr ah macluumaadkaasi aan halkaa kaga gudubno markaana aan eegno isbahaysi cusub oo ka dhan ah dowladda Mareykanka ayaa markii ugu horeysay waxaa ku dhawaaqay dowladaha Shiinaha Ruushka iyo dowlado kale oo dhowr ah iyadoo ujeedadu ay tahay inay saddexdaani dowladood iyo kuwa kale ay iska kaashadaan arrimaha ammaanka dhaqaalaha iyo sidoo kale sirdoonka dowladahan ayaa waxay kale yihiin dowladaha Shiinaha Ruushka Iiraan Kazakhstan Kyrgyzstan Uzbekistan iyo Tajikistan waxa kale oo qayb ka ah dowladaha India iyo Pakistan waxaana ay sameysteen urur ay ku midaysan yihiin iyagoo la sheegay inay iska kaashan doonaan dhinacyo kala duwan sida dhaqaalaha siyaasadda ammaanka iyo sirdoonka iyada oo taageero weyn ay ka helayaan Ruushka iyo Shiinaha iyo Iiraan ayaa waxaa lagu warramayaa inay noqdeen xubintii ugu dambeysay ee ku soo biiray isbahaysigaani loogu magac daray Shanghai kaasi oo sida ay qabaan falanqeeyaal badan u muuqanaya isbahaysi ka dhana ururka gaashaanbuurta NATO ee waqooyiga Atlanta intuu socday shir madaxeedka ururkan oo lagu qabtay magaalada Tajik ayaa waxaa lagu warramayaa in xubnahan ay isku raaceen in wax laga bedelo maqaamka dowladda Iiraan oo markii hore xubin sharafeed ahayd lagana dhigo xubin buuxda oo ka tirsan ururkan isbahaysiga ayaa waxaa la aasaasay markii ugu horeysay 24 Abriil sanadkii 1996 waxaana markaasi uu ka koobnaa 5 xubnood oo kala ahaa Shiinaha, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ruushka iyo Tajikistan. shanta madaxweyne ee dalalkaasi ayaa kala saxiixday heshiis iskaashi mid militari iyo mid dhaqaale iyo sidoo kale mid siyaasadeed sida macluumaadka aan ku helayno. bishii Abriil 24 sanadkii 1997 shir ka dhacay caasimadda dalka Ruushka ayaa isla dalalkaasi waxay ku saxiixeen heshiis ku saabsanaa xadididda ciidamada militari ee aagga xuduudaha sidoo kalena sanadkii 2000 shir ka dhacay magaalada lagu magacaabo Dushanbe waxay isku raaceen inay ka soo horjeestaan faragelinta arrimaha gudaha ee dalalka kale iyaga oo lagu marmarsiyoonayo arrinta bini'aadanimada iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo in la taageero dadaalada midba midka kale ee ilaalinta madaxbannaanida qaranka madaxbannaanidooda guud ahaaneed wadajirka dhuleed iyo sidoo kale xasiloonida bulshada 15 Juun sanadkii 2001 waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqay aasaaska ururka iskaashiga ee Shanghai kadib markii Uzbekistan ay ku biirtay ururkan himilooyinkii ujeedada ururka ayaa hadda waxaa lagu sheegay kadib warmurtiyeed ay soo saareen inay hiigsanayaan ama ay doonayaan inay xoojiyaan siyaasadda daris wanaagga ee dalalka xubnaha ka ah iyo sidoo kale in la taageero iskaashiga ka dhexeeya dhinacyada kala duwan ee siyaasadda dhaqaalaha bulshada ammaanka iyo sirdoonka iyo inay ka hortagaan siyaasadaha isdiidan ee isbahaysiyada kale sidoo kale waxaa qorshe uu yahay inay ka shaqeeyaan in la dhiso dimuqraadiyad iyo sidoo kale cadaalad sidoo kale ururkan waxa uu cadeeyay in uu ka shaqeynayo la dagaalanka waxay ugu yeereen argagixisada ka hortagga xagjirnimada iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada gooni ugoosadka iyo la dagaalanka hubka iyo ka ganacsiga daroogada isbahaysigani ka dhanka dowladda Mareykanka ayaa waxaa lagu warramayaa in magaciisu yahay Shanghai waxaana iminka dowladda Iiraan ay ka noqonaysaa xubin buuxda iyadoo qorshe uu yahay inay ka hortagaan dhaqdhaqaaqyada ay dowladda Mareykanka iyo kuwa kale ee gaashaanbuurta NATO ay ka sameynayaan gobolka markaana aan eegno ugu dambeyntii guddiga amniga ee gobolka bari ayaa ku eedeeyay dowladda Soomaaliya inay kaalin ku leedahay xiisadda ka taagan Boosaaso iyagoo isku dayaya sida la sheegay inay xasilooni darro ka abuuraan Puntland gudoomiyaha gobolka bari Cabdisamed Yuusuf Axmed Abwaan ayaa shir gudoomay kulan amniga looga hadlayay waxaana warbaahinta uu sheegay in laga bilaabayo magaalada Boosaaso howlgallo lagula dagaalamayo wuxuu ugu yeeray cadawga Puntland
wuxuu guddoomiye intaasi ku daray inuu si dhow ula socdo dhaqdhaqaaqyada shakhsiyadeed ee gacansaar kale leh villa soomaaliya kuwaasoo uu sheegay inay horinayaan xiisadda ka taagan boosaaso iyaga oo doonaya in dagaal uu ka dhaco magaalada oo xaaladda faraha ay ka baxdo gaar ahaan deegaanada kala duwan ee puntland falanqayntii siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee maraacda show maanta oo jimcaha waa naginta macluumaadkan kan xigay intaan ku kulmi doonno nabadgelyo kulanti wacan oo wanaagsan saaxiib yaal dhamaantiinba meel waliba joogtaan iyo si waliba inoo maqashaan kusoo dhawaada barnaamij wareedkayga qodobada aad daawan doontaan saaxiib yaal waxaa kamid noqonaya jabhadda xureynta shacabka Tigreega oo sheegay inay gebi ahaanba doonayaan inay joojiyaan dagaalada isla markaana ay wada hadal u diyaar garoobeen balse abi uu taasi doonayo waxa ay leeyihiin isirkeyna ayaa la doonayaa in la dabar jaro jabhadda xureynta Tigreegana waxa ay iskaga baxeen magaalooyinka Disay Kumbaljo iyo sidoo kale magaalooyin kale kadib godoomin ay ku sameeyeen ciidanka militariga Ethiopia qodobada kalena saaxiibayaal waxa kamid noqonayo barnaamij wareedkayga ku daawan doontaan sawirro muujinayo fadhiisimihii laga qabsaday kooxda Fallaagada ah ee TPLF oo lagu baahiyay baraha bulshada saaxiibayaal qodobada iyo qodobo kale idin soo gudbin doonaa waxaan idin leenahay saaxiibayaal soo dhawaada halkan waa barta ay YouTube ku leenahay ee Baniga Production waxaan idin ka codsanaynaa inaad subscribe inoo saartaan muuqaalkan like iyo share ay dhahdaan saaxiibayaal qaybta hoose commentigan aragtidiina aad inagu la wadaagtaan waa maasantiin saaxiibayaal waxaan ku bilaabayaa jabhadda xureynta shacabka Tigreega ee TPLF ayaa waxa ay warqado u direen UN-ka midowga Yurub midowga Afrika waxayna ku sheegeen in isir sifayn lagu wado iyagoo xusay in magaalooyinkooda iyo fadhiisimihii ciidamadooda laga burburiyay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska kooxda TPLF waxay sheegtay in xilli hore ay diyaar u ahaayeen wada hadallo bilaa shuruud ah balse Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia uu talaabadaasi diiday waa sida ay hadalka u dhigeen waxay sheegeen in ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Master Abiy Ahmed uu ugu baaqay madaxda iyo ciidamada taabacsan kooxda TPLF inay isa soo dhiibaan wararkaasina waxa qortay wakaalada wararka ee Reuters afayeenka kooxda TPLF ayaana sheegay inay doonayaan wada hadal ay la galaan ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Master Abiy Ahmed inkastoo ay xusid mudan tahay in TPLF ay horay wada hadallo loola galay iyo sidoo kale xabad joojina lagu dhawaaqay dhinaceeda ay ka suuragali waayeen waxay u muuqataa arintani ama tani ay ka dhigan tahay in ay tahay guuldaradii ugu xoogganeed abid ee soo wajahdo xoogaga TPLF oo sidoo kale sheegay inay yihiin koox doonaysa inay gebi ahaanba meesha ka saaraan ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Master Abiy Ahmed toddobaadadii ugu dambeeyay awoodda ay leeyihiin Abiy Ahmed marka taliska ka soo horjeedo ee marka Tigreega ayaa cirka isku sii shareereysay magaalooyin dhowr ah ay la wareegeen Abiy Ahmed ay xaaladii ugu cakirneed geliyeen waxa ay ka gaartay heer ilaa uu Abiy Ahmed gaaro furimaha hore ee dagaalada balse haatan jabhadda xureynta shacabka ee Tigreega waxa ay iskaga baxeen magaalooyinka ay la wareegeen magaalooyinkaasi oo ah kuwa istiraatiijig ah waxaana kamid ah magaalooyinka Disay Kumbaljo iyo sidoo kale Lalibela magaalooyinkaasi oo ay go'doomin ku sameeyeen ciidamada militariga ah ee Ethiopia ayaa sababay in jabhadda xureynta shacabka Tigreega ay iskaga baxaan magaalooyinkaasi diblomaasiyiin ka tirsan dawladda Ethiopia ayaana waxa ay xaqiijiyeen xogta sheegaysa in magaalooyinka Disay Kumbaljo iyo sidoo kale magaalooyin kale oo ay horay u qabsadeen TPLF ay gebi ahaanba iskaga xaqiijiyeen waa markaa iskaga huleeleen magaalooyinkaasi ciidamada militariga Ethiopia ayaa go'doomin ballaaran ku sameeyay xoogaga taabacsan kooxda TPLF ee ku sugan deegaanada ismaamulka Amxaarada arintaasina waxa ay sameysay ama ka dhashay in magaalooyinkaas ay faaruujiyaan xoogaga TPLF oo horay u sheegi jiray inay ku wajahan magaalada caasimadda u ah Ethiopia ee Addis Ababa dhinaca kalena saaxiibayaal waxa la soo baahiyay sawirro muujinayo fadhiisimihii laga qabsaday kooxda Fallaagada ah ee TPLF fadhiisimahaasi oo dhaca halka loo yaqaan Arbit iyo sidoo kale Gashana wixii saaxiibayaal wararkaasi ku soo kordha iyo muuqaalada ka daba yimaadaba dib ayaan saaxiibayaal idinka la soo socodsiin doonaa ciidamada militariga dawladda Ethiopia ayaana waxay sheegeen inay qabsadeen burta liirada Gashana taas oo ka dhigan in la go'doomiyo kooxda Fallaagada ah ee TPLF የሀገር መከላከያ ሰራዊት መጠቃቱን ሲሰማ ግን የሀገር ባለውለታ የሀገር ዘብ እንድትጠቃ በሚል ከመከላከያ ሰራዊትና ከአማራ ልዩ ኃይል እንዲሁም ሚሊሻ ጎን በመሰለፍ አሸባሪውን ህወሓት ቡድን በአርበኝነት ጠራርጎ አባረዋል። እኛ ከዋሻ ነው የምንኖረው ወደ 97 አንስቶ
24 ተፈጽሞ በ27 ነው 136 ሰው ይዤ ወደዚህ ያመራሁት ከዛን ጀምሮ ያው እኛ የሰራነው ምንድነው ብዙ ስራ ሰርተናል ብዙ ምሽጎች ሰብረናል የኛ ፍትናና ሩንታ ብዙን ማለቱ ይቅርና እኛ የሰራናቸውና አሁን ጁንታው እየሰራው ያለው የሰማይና የምድር ያህል ርቀት እኛ በተከዜ ዙሪያ ማይጠብሬ ስናስመልስ በማህበረሰቡ ላይ የነበረን አደረጃጀትና የነበረትና እንደዛ አይደለም አሁን ደግሞ ጁንታው እየፈጠረ የመጣው ችግር እናቶችን በማሰቀቅ ህፃናቶችን በማሰቀቅ ብዙ ማህበረሰብ እየገደለ የህዋትን ሀገራት ፊተልኮ ቀድሞ እንደተረዳ የሚገልጸው ገበየው አፍንጫው ታጥቆ በነበረበት ወቅት አጭር ጊዜ ተንኮታኮተ ህዋት ቡድን መልሶ ለማገገም የሚጨረጨረው ሂደት ማስመሰል እንጂ በሙሉ አቅሙ አለመሆኑን ተረድተናል ይላል አሁን ሰሞኑን አየሯን ተጠቅሞ ውሃዋን ተጠቅሞ ጉሟን ተጠቅሞ ወዲህ የሽፍታ አሯሯጥ ይሮጣል ጁንታ አቅሜ ጁንታ ያን ሁሉ ማቴሪያል ያን ሁሉ መሳሪያ ያን ሁሉ የኢትዮጵያን ገንዘብ አጋፉ እንኳን ተደብቆ ያለ 3 ሳምንት አልፈጅብን አሁን 3 ቀን ይፈጃል ብዬ የጁንታ አቅም አላስብም ሆና ጊዜ ወደ ኋላ saddex maalin si xariir ah furinta hore ee dagaalka uu ku sugan yahay dagaaladan uu hogaaminayo in isbedel weyn la dareemay isbedelkaasi oo ah in marka TPLF ay sheegeen in cunaqabatayn la saaray isir gooyn lagu sameeyo arintaasina ay ka soo horjeedo xeerarka caalamiga ah waxa xisad mudan in markii wadan dagaal uu ka dhacayo dawladaha iyo sidoo kale quwadaha caalamka ama sharciyada caalamku aysan taageersanin in la isir gooyo koox sida daradeed TPLF waxa ay markaas ku micisiibanaysaa in marka isirgoyn lagu sameeyo sida daradeed inay u baahan yihiin taageero iyo in la soo dhaxgalo ayaga iyo TB waa marka Ethiopia uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Master Abiy Ahmed ayadoo ay ka sii darayso xaaladda magaalada Boosaaso ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdilaahi Dani waxa uu shaaciyay inuu go'aan ka gaarayo waxa uu ugu yeeray ciidanka gadooday ee markaasi dowlad goboleedka Puntland si gaar ah ciidanka BSF-ta madaxweynaha Puntland Saciid Dani oo mar kale ka hadlay xiisada ka taagan magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa sheegay in maamulkiisu uu go'aan ka gaaray in la ciribtiro ciidamada iyo hay'adaha sida gaarka ah u hoostaga shakhsiyaad gaar ah Dani wuxuu tilmaamay in dhibaato weyn ay ka dhalanayso marka ciidamada iyo hay'adaha ay maamulayaan qoys ama shakhsiyaad gaar ah wuxuuna sheegay in dhibaatooyinkaasi ay kamid tahay in danaha dadkan ay ka hormariyaan tan guud sida uu hadalka u dhigay dalkan hal dawladood ayuu yeelanayaa hal ciidan ayuu yeelanayaa oo ma aqbali karno ciidamo rag leeyihiin markii aan imaanay waxa aan maqalnay nin waliba 200 ayuu dakhliga ku leeyahay maalintii ugu horeysay ayaan ka taqalusay ciidamo hebel leeyihiin dabayaaqadooda ayaa socdo ayuu yiri Dani Saciid Dani ayaa ku faanay in maamulkiisu wax badan ka qabtay dhibaato uu sheegay inay ka taagneed waqooyiga gaalkacyo taasoo uu ku sheegay inay wax ka qaban waayeen maamuladii asaga ka horeeyay waxa aan gaalkacyo tagnay iyada oo 30 wiil magaaladii oo dhan ciroole iyo caamo ay bariyaan waxa aan wax ku qabsan karnaa waa sharci oo hadii la waayo ay dhumayso awoodda dawladda dadka maamulka gacanta ku hayo waxa aan ku wargelinaynaa inaysan dalka waa dadka ku takrifarin ayuu yiri Saciid Dani hadalka madaxweynaha Puntland Saciid Dani ayaa ku soo beegmaya xilli uu khilaaf weyn kala dhaxeeyo hoggaanka sare ee ciidamada BSF-ta ee uu xilka ka qaaday kaas oo ka dhashay xilka qaadis uu ku sameeyay taliyaha ciidamadaas Saciid Dani wararku waxay sheegayaan naga soo gaarayo caawa gobolka Bari in wali xiisad xooggan ay ka taagan tahay gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolkaasi taas oo u dhaxaysay madaxweynaha maamulka Puntland iyo saraakiisha ciidamada BSF-ta ilo dadka deegaanka ah ayaa inoo sheegay in dhaqdhaqaaq hor leh xalay ilaa iyo haatan uu ka soconayo ama laga dareemayo magaalada taas oo ay wadaan ciidamada labada dhinac wararku waxay intaas sidoo kale ku darayaan ama ay sheegayaan in qaar ay barakaceen guryahooda dadka qaarna ay wali ku sugan yihiin gudaha magaalada kadib markii ay sii kortay cabsida laga qabo in dagaalku uu xoog oo markaasi halkaasi ka qarxo xaaladda ayaa ka sii dartay markii Dani uu ciidamo hor leh ku daabulay gudaha magaalada Boosaaso halka dhankooda ay dhufaysyo magaalada ka dhaxay sameysteen ciidamada BSF-ta guud ahaan saaxiibayaal barnaamij wareedkayga ku saabsanaa xaaladda dalka Ethiopia waa naga inta wamaasintiin saaxiibayaal barnaamij wareedkayga share gareeyo muuqaalkan bulshada Soomaaliyeed la wadaaga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh kulanti wacan saaxiibayaal halkan waa dhaanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka
qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya xagee ay ku dambeeyaan wararkii la xiriiray in la maxkamadeynayo boqor Burmudow oo ku sugan gudaha magaalada Muqdisho siyaasiyiinta hawiye oo sidoo kale ka dalbaday in mar kale magdhow bixiyo boqor Burmudow xilli uu dhawaan dalbaday in la cafiyo Somaliland oo sheegtay in dib ay u soo celinayso boqor Burmudow haddii la isku dayo in lagu maxkamadeeyo gudaha dalkan Soomaaliya boqor Burmudow oo la sheegay in 3 cisho gudahood oo 5 hotel isee kala gudbay kadib cabsi weyn oo soo fasaartay amnigiisa iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya aan ku eegi doonaa warkeena balse marka hore saaxiibayaal u diyaar garooba qodobada hordhaca warka aad daawateen oo dhameystiran aynu ku bilawnay xagee ayuu ku dambeeyaa hadalkii iyo sidoo kale wararkii sheegay in la xirayo boqor Burmudow xogo hoose oo helay dhanka wararka waxa ay tilmaamayaan in weli uu meeshiisa yahay mowqifka ay qaateen siyaasiyiin dhowr ah oo ugu horeeyo gudoomiyaha amniga gobolka Banaadir Cali Yare Cali kaas oo la xiriira in ay maxkamadeyn doonaan boqor Burmudow oo sheegay dhawaan ku xadgudbay dadka koonfurta isagoo taageero muujiyay ururka Al-Shabaab Cali Yare Cali ayaa sheegay in weli mowqifkiisa uu ku taagan yahay isla markaana uu marba ka tanaasuli doonin in ninkan uu sheegay maxkamadda la diigsanayaan ilaa inta uu magdhow ka bixinayo xasuuqad uu sheegay in shabaab ay u geysteen shacab Soomaaliyeed boqor Burmudow oo dhawaan hadla ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in hadalkii uu yiri si kale loo dhigay isagoo cafisna weydiisay dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan koonfurta Soomaaliya hase yeeshee arrintan waxa gabi ahaanba qaadacay siyaasiyiinta koonfurta ka soo jeeda qaarkood oo ay ugu horeeyaan Yuusuf Garaad Cali Yare Cali Axmed Macalin Fiqi iyo kuwa kale waxaan dhamaantood ay dalbanayaan in magdhowna uu bixiyo boqor Burmudow maadaama xadgudub weyn uu geystay dad dhan oo Soomaaliyeed oo xasuuq loo geystay hadalka ay u dhigeen weli waxa si xoogeysanaya wararka iyo xogaha tilmaamaya in boqor Burmudow markan la doonayo in maxkamad la soo saajiyo maalmaha soo socona waxaa la sheegayaa in maxkamadda gobolka Banaadir ay u fariisan doonto dhageysiga dacwad ciqaabeedka loo heeso kiiskii lagu eedeeyay boqor Burmudow oo la xiriiray in Soomaaliya gaar ahaan Al-Shabaab ku tilmaameen yihiin dawlad gaar ah taas oo xadgudub weyn ku ah dowladnimada Soomaaliyeed boqorkan dhawaan la hadlo warbaahinta ayaa dalbaday in cafis loo fidiyo maadaama uu sheegay in uu ku xadgudbay ama si qalad ah loo fahmay hadal uu yiri balse arrintan ayaa weli aan qancin siyaasiyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed ku dhaqan koonfurta waxayna dalbanayaan weli in ay sugayaan inta maxkamad looga yeerayo ninkan maadaama ay sheegeen inuu ku xadgudbay qadiyadda Soomaaliyeed sidoo kale Maareeye ayaa san dhawaan weerar ku qaaday siyaasiyiinta qaarkood oo Cali Yare ugu horeeyo isagoo sheegay in ay yihiin wax magarato taas oo markale muujinaysa weerar ka qaawan oo reer waqooyiga ay ku yihiin shacabka Soomaaliyeed ku dhaqan koonfurta iyo sida ay dowladnimadoodii iyo dalkoodii ay u baadigoobayaan isla markaana ay beelaha uga dhigayaan dowladnimada Soomaaliyeed sidoo kale xogahan helay waxa ay tilmaamayaan in boqor Burmudow saacadihii ugu dambeeyay gaar ahaan 5 cisho ugu dambeysay oo 5 hotel oo Muqdisho ay kala guuray taas oo ku muujinaysa in boqorkan uu wajahayo qalqal weyn oo amni xilli cadaadis weyn ay saareen siyaasiyiin suuragal ay tahay in lagu weeraro hotelka uu degan yahay waana sababaha keentay in 5 hotel uu soo guuro gudaha magaalada Muqdisho 5 cisho gudahood sida xubno ay nala wadaageen oo ka agdhow boqorka ama ehla sida ay noo sheegeen waxayna xaqiijiyeen in boqorku uu dareemayo ulul cabsi iyo amni darri weyn isla markaana mamaha soo aadan haddii aan looga yeerin maxkamadda gobolka Banaadir ay suuragal tahay inuu isaga baxo magaalada Muqdisho maadaama qalqal weyn uu wajahayo dhanka amnigiisa hadalkii boqor Burmudow ayaa xiiso weyn ka dhex abuuray baraha xiriirka bulshada taas oo loo kala baxay Somaliland iyo Soomaaliya waxaana mar kale soo laabtay dirirta iyo dagaal ka dhex dhaqarxay Soomaaliya iyo Somaliland ee xilligii 91 Somaliland ay gooday iyadoo dagaalkaas baraha bulshada ka dhex abuurmay uu saameyntiisa weyn u lahaa boqor Burmudow oo xadgudub weyn u geystay beelaha koonfureed iyadoo kuwa waqooyiga difaacayeen boqorkooda taasi oo mar kale ruuxday masraxa iyo sidoo kale social media sababtayna in boqorka madaxiisa dagaal ku dhici lahaa ugu dambeyn uu soo istaagay social media dalbadayna in haligelin la siiyo maadaama qalad uu galay sida uu sheegay balse weli si toos ah ma qiranayo in qalad uu ku jiro ama qalad uu galay balse waxa uu sheegay in warkiisa si qadan loo dhigay oo kaftan ula jeeday taasi oo reer Muqdisho iyo guud ahaanba shacabka koonfur ay u dhigteen in uu yahay hadal aan muujinayn weli raali ahaanshiin u bixiyay balse ka dhigan tahay weli mid uu si adkaynayo
waxayna dalbadeen shacabka Soomaaliyeed in boqorka la maxkamadeeyo ama uu Iiraan laga qaado lacag magdhow ah dhammaan dadkii kala duwanaa ee Al-Shabaab iyo Axmed Gudane ay dileen sida xogtan helay ay tilmaamayso dhinaca kale waxa sii xoogeysay khilaafkii dagaalka weyn ee ka dhac qaraxay Maxamed Cabdi Xayir Maareeye iyo gudoomiye Cali Yare oo sidoo kale baraha bulshada aad isugu weeraray saacadihii ugu dambeeyay Xilal Maareeye ayaa waxa uu dhaliilay gudoomiyaha gobolka Banaadir ee dhanka amniga iyo siyaasadda Cali Yare Cali isagoo sheegay in uu gafay boqor Burmadow wuxuu sheegay Maareeye in waxa laga taaban karo hadalladii boqorka ka soo yeeray balse ay aad uga xumaadeen qaabka loo fasiray hadalkiisa waxaad moodaa dadka qaarkood oo uu ka mid yahay gudoomiyaha amniga gobolka Banaadir in hab siyaasadeedsan qorsheysan awoolan oo fangareysan oo hawshan u wataan uu yiri sida hadalku u dhigay Maareeye sidoo kale waxa uu yiri boqor Burmadow waxay ka dhigeen boqor aan gafgareynin waa bini aadan gafu galaya laakiin ogaada waa nabadoon beel oo ma ahan in la ijaafeeyo yiri Maareeye oo difaacayay boqor Burmadow oo ah dhaqameedka Soomaaliland ka soo jeeda hase yeeshee Cali Yare Cali ayaa sheegay in marnaba aysan ka tanaasuli doonin in ay dacweeyaan ninkan u gafay koonfurta Soomaaliya wuxuu sheegay Maareeye qayli ama ha qaylin iska daa'un anigu waan dacweynayaa dacwadina waan gudbinay dhawaan waa loo yeeri doonaa boqor Burmadow bal marka sharciga oo nadiif ka ilaali ama ka badbaado yiri gudoomiye Cali Yare oo jawaabay Maxamed Cabdi Xayir Maareeye waxaana markan sii xumaanaya khilaafka ka dhex taagan hadalkii dhawaan ka soo yeeray boqor Burmadow oo dagaal weyn ka dhex abuuray social media iyo guud ahaan baraha xiriirka bulshada arintan ayaa sidoo kale waxay abuurtay walaac weyn oo soo dhex galay dhammaanba siyaasiyiinta waqooyiga sida xogtan helnay ay tilmaamayso iyo kuwa u dhashay koonfurta ama si kale aan kuwa u dhashay beelweynta hawiye boqor Burmadow ayaa hadda ku sugan xaalad hubanti la'aan waxaana dadka qaarkood ay sheegayaan in uu la yahay qaab basar ah oo Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho uga baxo maadaama uu ku fashilmay dhammaanba safarkiisii ujeedkii ugu weynaa ee dalkan uu yimid arintan ayaa marka la sii cakirisay xaaladda ka taagan dalkan Soomaaliya iyo ujeedkii loo keenay boqor Burmadow gudaha magaalada Muqdisho kaasi oo ahayd xalinta kuraasta qaarkood ee gobolada waqooyi isku heesaan si gaar ah kursi isku heeseen Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo sidoo kale Xuseen Carab Ciise taas oo gudmay xal laga gaaray balse dacwadu gudbiyay Xuseen Carab Ciise ee sababtay boqor Burmadow xamar u yimaado isla markaana uu galo dagaalka eedda isku heeseen Mahdi Guuleed iyo Xuseen Carab Ciise oo ugu dambeyn uu ku guuleysay sidoo kale ninkan arrimaha ugu waaweyn ee loo keenay dalka ayaa ahayd in doorashada gobolada waqooyi gacanta uu ku hayo Villa Soomaaliya uu kala shaqeeyo si mar kale madaxweyne Farmaajo oo uu ku soo laaban lahaa waxaana arinta mar kale ay walaac ku abuureysaa xaaladda guud dalkan Soomaaliya iyo qaabka ay u socdaan iyo damicii weynaa ee mucaaradka iyo sidoo kale Villa Soomaaliya doorashooyin kala hayeen oo gabi ahaan fashilmaya haddii uu dib u laabto boqorkan balse waxa la leeyahay waa in laga cadgooyaa hadalkii uu ku hadlay iyo gafkii uu geystay dowladda Soomaaliyeed kadib sharciga uu maro ugu dambeynna laga masaafuriyo gudaha magaalada Muqdisho hadaba daawade fikirkaagii waxa ay kula tahay ku reeb qaybta commentiga tan iyo kulan dambe nabadgeliyo kulanti waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhabka hadal qaybtan waxaynu ku eegaynaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda dalka Itoobiya gaar ahaan waxaynu si gaar ah u eegi doonaa jabhadda hubeysan ee Oromada oo muddooyinka ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyo waday isla markaana iskaashi ama xulufo la sameystay kooxda TPLF ayaa waxaa booqday warbaahinta caalamiga oo halkaasi kula kulantay gaar ahaan deegaanada ay maamulaan waxayna sheegeen in ay wixii hadda ka dambeeya ay diyaar u yihiin in ay galaan magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya waxaan eegi doonaa awoodooda iyo waliba tayada ay leeyihiin kooxdan ee ay ku gali karaan xarunta dalka Itoobiya ee Addis Ababa macluumaadkii ugu dambeeyay arrimahan iyo jabhadaasi halka ay wax marinayso iyo waliba talaabooyinkii muddooyinkii ugu dambeeyay ay qaadaysay ee tababarada ciidamada badan ay ugu soo xireysay ayaynu eegi doonaa dhinacayga bidix waxa fadhiya jaamac isaga ayaa bal aan wax ka weydiin doonaa arrimahaasi iyo waxyaabaha la xiriira awoodda ay u leedahay inay caasimada gasho jabhadan jaamac soo dhawow jabhadan ilaa waa hore ilaa TPLF dagaal lagu qaadan iyagu waan soconay oo waxba ay tababarayeen hubban haysanaa dhul baan qabsanaynaa bay lahaayeen ilaa haddana wax quman oo ay haystaanna ma jirto bal hadda dhaqaaqyadan ugu dambeeyay ee ay wadaan xaggay maartay ay ku jahaysan yihiin بسم الله الرحمن الرحيم جود هم بوا سلام يا أمد الصوماليين ميل كستوي جوجان بوحن له سلام الله عليكم
marka la fiiriyo dee horta xaaladda guud ee dalka Itoobiya iyo jabhadaha ka dhaqdhaqaaqaya la yaab ma aha in maaragtay to jabhadita muuqaal la soo duubta ay dhaho waxaan u soconaa meel hebelle oo aan galeynaa laakiin waxaad moodaa marka la fiiriyo waaqaca iyo xaqaa'iqa dhabta ah ee meesha yaalahay dee inuu iska yahay qayb maaragtay ka mid ah propaganda iyo dacaayadaha dee maaragtay ay qolo waliba dhinaceeda iyadoo ay fidsanayso marka jabhadda lagu magacaabo OLA ama Oromo Liberation Army waa faraca hubaysan ee jabhaddii OLA farta oo intii qaybtii siyaasadda Daawud Ibsa la galay moogtahay qaybtii hubaysnayd baa soo hadhay marka 2018 yeena soo maaragtay aduudsadeen xoogaa kadib markii gudaha ay soo galeen ciidamo badan oo dhinaca iyo meelaha ka yimid 2019 waxay ahayd jabhaddii ugu horeysay ee dawladda Abiy Ahmed Cali ay dagaalka la gasho aaga gobolada Guji iyo Arsi iyo Walega iyo maaragtay meelaha ay dagaal adag kula galeen dagaaladaasi dib badan baa ka dhacay oo dad badan baa lagu laayay diyaaradaha dagaalka ee carara ama guuxooda ka dheereeya yaa aad u duqeeyay dhulkaas oo dhul buuraleeya ah wixii xilliga ka dambeeyay jabhaddu waxay bilowday aruursi iyo maaragtay to waa la wiiqay horta oo si fiican yaa xilliga loo wiiqay oo ciidanka maamulka Oromada oo isaguna ciida ka badan yaa lagu yaaciyay caradii waxa ka dhacay daxaway gad qabso oo kala carab ka dhahaa wixii xilliga ka dambeeyay marka waxay bilaabeen aruuris iyo inay dib isu yabyabaan waxay ka faa'iideysteen marka isla 2019 mudaharaadyadii iyo rabshadihii xarigii ninka lagu magacaabo dilkii fanaankii Hajaalo Humbusa wixii ka dambeeyay iyo xarigii Jawaar Maxamed iyo Baqala Garba ragaasa markii la xiray Oromo waa gadooday Oromo si guud bay u kacday kacitaankii Oromo ay kacday waxay Oromo markaa heshay meel ay maaragtay ay looga sii horeeyay oo nimankeedu fadhiya yay u tageen halka waxa ka soo baxay dhalinyaro tiro badan oo wixii badbaaday ahaa ciyaal iskuulkii shaqaalihii qaar badan oo kamid ah qaybihii kala duwanaa ee ciidanka Oromada ama military ha ahaadaan ama liu police ha ahaadaan ama maleeshiyad ha ahaadaan waxay dooniba ha ahaadaan Oromadii meel ay maaragtay looga sii horeeyay yaa heshay halkaas marka horta jabhaddu iyo xoogeeda ka bilowdo ka yimid waxay bilowday inay 10,000 oo dhalinyaro ah ay aruuriso oo meel kala duwan lagu aruuriyo in la soo saaro ciidamo in kolba labadii biloodba ciidamo hor leh la soo saaro ilaa aakhirkii la isla gaaray ciidan koofiyad casan iyo ciidankii canshuuraha qaadi lahaa iyo ciidankii maca traafikadii ilaa ay dhisaan oo hadda maaragtay marka aad fiiriso inta ciidan ee dawladnimo ay u baahan tahay yay leeyihiin oo xagee ka hawlgaleen duurka waxay ku leeyihiin markaan Addis Ababa qabsano waxa weeye looma baahnaba dad la qoro iyo xilliga iyo kuwii hore inay sii shaqeeyaan wixii diyaarsan in la galo nidaam marka yar dawliya oo duurka ka jira yay leeyihiin ciidankii koofiyad cadda dhisan CID baa dhisan booliskii caadiga ah baa dhisan federal booliskii baa u dhisan wixii oo dhan baa adigu yaa la kala yabyabay canshuuraadkii iyo turbataariyadii iyo qoladan waxay dhahaan baan u marayn finance miya noocaas kuwa baabuurta eriyada wixii oo dhan way samaysteen calaayat xaal muhiimadu waxa ay tahay jabhaddu waxay bilowday waa dhaweeyta dhaqdhaqaaq iyo maaragtay hawlgallo waxay ku baahiyeen dagaalkoodii bilowgii sanadkan qaybo badan oo deegaanka Oromada ah deegaamada dariska ah ayay la galeen waxba yaanan hadal kugu daalinin dhawaan waa tii hawlgalka kooxda TPLF uu gudaha deegaanka Axmaarada iyo Canfarta galay xilligaas marka waxa bilowday isxulafaysi iyo inay wada xiriiraan wada hadlaan adoo waxba isku afgarteen hadda marka way isla hawlgalayaan wayna kala hawlgalayaan wayna wada hawlgalayaan oo dhaqdhaqaaqyadoodu inta badan maaragtay to waxaad moodaa inay kuwa uun si u xiriirsan yihiin marka la fiiriyo marka dhinaca waxna waa tiro waxna waa tayo
ciidanka OLA inkastoo uuna sidii hore ahayn oo de uu maaragtay aad kor isugu soo qaaday haddana waxaad moodaa dhinaca tayada iyo dagaalada la galayo iyadoo wax badanna ay ka dhiman yihiin haddana ma aha yacni dagaalo miisaan leh ma aha iyaga oo si walba u tira badan dagaalkoodu waxaad moodaysaa inuu yahay dagaal weli ku dhufo ka dhaqaaqa iyo meesha ciidamadu ay ka baxaan oo loo daba mara iyo jidka oo xagga laga gooyo oo markii la yiraahdo baabuurtii militariga soo socotaan loo baneeyo iyo adoo waxyaabo maartay noocaas magaalo ay soo galaan iyo laakiin weli dagaalo mahiigaana oo saacada soconaya oo maalmo qaadanaya sida kuwan TPLF oo kale oo laga yaabo inta magaalo la isugu yimaado webta la iska saaro toddoba bari oo xabadu ayna istaagin yani markay socoto marka dambe qolo laga itaalfanaanayo oo kale weli heerka dagaaladaasa mayna gaadhin lagamana sugahayo maxaa ka qaaday de horta hubka waa kow qaabka ay u tababaran yihiinna ma aha qaab maaragtay to military ee waa qaab gorilla ha oo nooc yar jabhadayna weeye inay wax ka nixiyaan mooyaane waxaad moodaa inay meel qabsadaan weli kuma baraarugsana taana waxay u baahan tahay iyada naftirkeedu waqti iyo fursad bay u baahan tahay oo in ciidankii magaalo qabsado magaalada uu xagsado ka sii duulo haddana magaalo kale uu qabsado iyadii uu xagsado kasi yani sida nimankan Tigreegu waxa weeyaan qaab military way ku socdaan qaab jabhadeedna way ku socdaan ayagoo magaaladan jooga waxay galayaan ugu yaraan 20 tuulo oo midaba meel tahay oo ujeedada ay kala yihiin ay tahay in la yiraahdo way yimaadeen haddana tii ay ka soo duuleen rajal lagama qabo dib in loogu noqdo oo awood ay ku xagsadaan bay leeyihiin iyo kaarto adduunku yani ma aha oo kaliya hub waaweyn iyo maxaan ku idhaahdaa baabuur la isku eriyada ma aha waxa weeyaan waa kaartada iyo tacticada weeyaan kuwan marka kaartadii iyo tacticadii military ee qaab military loogu dagaalami lahaa ma aha qorshahoodu oo waa qorshe jabhadayna weeye oo ay mustaqbalka dheer loo dejiyay marka hadda inay wax qabsadaan waxa keenay hankeeda waa qoladan iyaga hankooda jabhadayn buu ahaa waxa aad maasada jaamaco waa dhaweyd waxaan arkaynaa BBC warbixin ka diyaarisay hadda telefishinka France 24 oo dalka Faransiiska leeyahay ayaa warbixin ka diyaariyay bal naga waran warbixinadan iyo marka la fiiriyo qaabka ay wax wadaan iyo jabhada iyo awoodeeda waa runta oo de awal hore fursadaha noocaas ma aanay jirin waa fursadaha hadda soo baxay TPLF salaxay maya iyaga naftirkooda soo salaxay oo markii dhinac laga fiiriyo yani waa de cudud bay yeesheen mar hadii aduu haddaad maar adkayso dee wax ku sheega waay maysid waa lagu baahanayaa sababtoo ah adduunka waxaa jira ummado dhan oo warkaa unquuta dee kuwii warka quudanaya war bay rabaan soo maaha ay soo tabiyaan marka jabhadan oo inta badan go'doonka ahay dunida oo aan maaragtay goobahooda iyo saldhigyadooda iyo meelaha ay madaxdooda joogta aan aqoon loo lahayn dunidii baa hadda baratay warbaahinta caalamka yaana bartay warbaahinta caalamkuna iskama imaanine waxay ku timid iyaga awoodooda iyo muuqashadooda iyo dhaqdhaqaaqyada iyo hawlaha ay maaragtay ka muujiyeen gudaha dalka Ethiopia yay ku timid marka waxa weeyaan warbaahinta hadda ugu dambeysay ee tagtay waa France 24 waxa ay wareysatay qaybaha kala duwan ee ciidamada iyo maamulka mas'uuliyiinta ciidamada iyo hawlwadeennadooda yay su'aalo weydiinayeen waxay soo bandhigeen saldhigyadooda iyo qaybaha ciidanku maaragtay ka kooban yahay tababaradooda iyo hogaamintooda iyo qaabka hawlgallada iyo waxyaalahaas ka hadleen runtiina marka aad fiiriso qaabka hadda ay u dhisan yihiin ee ay u maaragtay abaabulan yihiin waa qaab aad u heer sareeyo weeyaan ma aha qaabkii lagu yaqaanay jabhadaha gaar ahaan jabhada OLA ama OLF ba lagu yaqaanay ma aha waa jabhad dhaqaaqaysa oo inkasta oo ayna deegaamo iyo magaalooyin iyo dhul ay qabsatay oo ka sii duulaysa ayna jirin haddana waxa la dhihi karaa yani 5 kilomitirba oo deegaanka Oromada kamidaba waxa uu jooga qayb kamida ama wax uun baa ka jooga ciidanka OLA taasi waxay muujinaysaa marka cududooda iyo maaragtay qaabka ay u hawlgalayaan iyo jiritaankooda awoodda ku dhisan ay muujinaysaa waxay ka hadleen mas'uuliyiintoodu hawlgallada ay fuliyaan waxay sheegeen in hadda wixii abaabul iyo dhaqdhaqaaqiyo ahaa ee dhinaca maaragtay bulshada iyo wacyigelinta iyo tababarada ahaa 80% inay soo afmeereen oo ay ka soo gudbeen hadda waxa ay ku jiraan uu yahay hawlgal military oo
lagu raadinayo wixii iyagu ay doonayeen oo ahaa helitaanka jamhuuriyad madax bannaan oo dadka oromadu ay leeyihiin oo ka hirgasha dhulka oromada caasimadeeduna ay Addis Ababa tahay waa iyaga hankooda iyo sida ay maartay u hadlayaan marka wixii hadda ka dambeeya dhaqdhaqaaqanagu waxa ku wajahan yahay xagga ay Addis Ababa awood marka ma leeyihiin awood ay Addis Ababa ku leeyihiin haddii ay yeeshaan maxaan ku xiniyaheeda way geli karaan hadday yeelan waayaan hadda banaanka aan bay qoordin leeyihiin meelaha sida cantalaagi taagnaani marka muhiimaddu waxa ay tahay adduunka horta waa ismaqiiq maanta dunida la joogo waa ismaqiiq way haddaan indhaha faraha la iska gelin koob shaaha lama kala cabayo xaqiiqdu sidaa way dunida maanta qoriga caaradiisay ku dhisan tahay 10 wiil haddii Addis Ababa gasho wax badan bay ka bedeli kartaa xaaladda laakiin waxaa la rabaa 10 ka wiil عدي قلين لهاي يكون دير قلين لهاي يلا روا ها كل دير رش على الربا جلمارو hogaamiyaha jabhadda waxa la rabaa inaad socoto oo dhahdo kolba Addis Ababa dhinac ka istaagto oo dhahdo Addis Ababa intaasaan u jiraa wax macna ah oo ay soo kordhinaysa male laba mid weey dagaalka inaad ka midha dhaliso oo aad wixii aad u dagaalamaysa adoo u dagaalamaya ama aad dhimato ama aad guusha gaadho wax ka dhaxeeya male kolba dhinac magaalada ka istaag oo kolba dhinac isaga soo sawir oo maalin ba 10 wiil waxaad geysaa laamiga oo halkan waa laamiga Addis Ababa ade waxa weeyaan wax badan ma soo kordhinayso dagaalka oo sii daba dheeraada ama dhaqdhaqaaqa oo sii daba dheeraada oo aan wax tar yeelaninna umadu ku nacsiinaya sababta ummadii dib baa lagu hayaa ummadan dawlad baa maamusha ummadan dawlad baa maamusha dawladdaasi waxa weeyaan talaabooyin bay qaadaysaa sirdoon bay leedahay hay'ado ammaan bay leedahay meeshii lagu sheegay nimankaas waa la gelayaa meesha markii la gala dadka ku nool dib baa loo geysanayaa aakhirkii dadku way ka hor imaanayaan inta marka lagu heelan yahay ee waliba xuduudda iyo awoodda aad leedahay yay ku haboon tahay wixii talaabo ah aad qaadi karto inaad qaadi laakiin nin dhintay dhulka wax kuma lahayd hada kolba dhinac ka istaagto magaalada teema waliba saan baduurka ugu jira dabacad iyo adiga baa isla weyn way hagaag aad ma san yahay jaamacada wadayaal intaas ku soo gabagabeynaa qodobkan tan iyo kulan dambe waxaan ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo وكا أرسنال عوال قراعي روتيو مانشستر يونايتد بانا هبيك قوليستيو يا أرنب النو كحوق بدي كورنب النو كحوق بدي أرسنال تبرير هذا ياسك علي كرتا أرسنال تبريري يا مركز وحي كله وحن هاي كعنا السنة العقا هو بدن سوق العقو بحيال لنا هاي كله تفاريز يسوق نونو يسوق كذا يكور ساسي وحي كل متقارا كعنا سوق العقا هو بدن كوب عسي أي كل سنة بريمير ليغا الواقع يوه بيك وش يوري وقاري نيكا كان كومع سلامة يقول يسقو محل ذا كاري كحضة هذا شغالها كحضو كسيم النقرية بريان واللو بقي وكان عاوة توبرها عصوب كورس شوقي راينك يسقى هوش انت بدن كسي عاوي دونا مانشستر يونايتد هابين كو سدح جول إيه اللي بقول بيكو قراعدي كوا كان أرسنال هابين ويبوها ماستر كريستيانو رونالدو وحنو هابين اللي يسكدب اللابتيو جولاشو اللي يسكدب إيمانيي يا ماستر دقاي بريهان وحو كسو لابتياقي نيكي قتل تبدنا يورنتيو عجيب كاها محيلي مقع مهما لقا قويني يايو بريهان جول بدبادين بوهايا يادو مان يونايتد هابين كا جول وكاقهر مري عيارتو اسمي دراوي جول هاي مانشستر او جيفا يا ايو جول كتوري اوغتاي يا ولا رينك واكا هابين كو سيسو وحو انت وحي كدب اني كوخدا ليدي ولا معنا ذا بروفيسور هابين جول با لغو سو دhoweeyay يا راوي ايا دhaliyay جول lagu murmay جول هايو جيفا ayuu row micnaha ninka kan fareeda ku istaagay fareeda abika yaqay waa laga yaabay fareed yani korna la soo tuuray fareeda golay ku istaagay golahay waa intuu jiifo ayuu kubaddi soo laabatay roobiya ku dhaliyay markaas waxay yiraahdeen ee golahay naga jiifo gol miya golahay naga jiifo kula war haduu jiifo golka ma la iska cafinaya waa gol baa liri gol hayaa naga jiifo ay yiraahdeen cid ma ogtahay gol hayaa jiifo beel bay tiri Arsenal روبا جول كدلي ولا أنسيين مركو جول كانوا دليي فرنانديز باك بريتش عيارته الله بأسي عبوها فريد نيو فريد كوا بلاي لو بحيك وريا غي أرجازا فريد وريا نيكا ورين عادي عربو كسيو جول بعيارته نقاط كذب رونالدو أيه هبيكو جاري جول كسيد بقولات مركي راشلات كتيما يمادي ونكانوا لو تكون في تروتيو الله هالكدق عيارته أودجاد بس كبريتش عيارته الله كدقي بس أودجادكو مرة كان عضيو إستقر يورو كانيو كريستيانو رونالدو هذا بدل التجاه هلايو روتيو لما جول كلا هبيكو يا سديد بقوليكو جول كو جاري أرسنال سيدا هبيكو لو جراعي سو كنت بنت برنامج كيلون وحاكي قادنيا أسكونيكوم معمل هدي هاي أرضي دنينيين وحكو برتو ودنك توكيغا ولبا قيمة معقولة كسروا شركة دا أسكونيكوم أو صوصارتا وحبرشدو دي بدا يفيساها دالك توكيغا
booqo xarumaha shirkadda ee Muqdisho, Hargeysa, Garowe, Gaalkacyo, Beledweyne, Jowhar, Baydhabo iyo Istanbul. Kala xiriir nambaradu shaashada kaaga muuqda ama booqo website-ka www.askunicom. ka dhigo Askunicom wehelkaaga Turkiga. runtii marka Manchester runtii guush ugu horeysay bay ahayd oo ay gaarayso tan iyo October ay gaarto weeyaan 2 bil iyo biyo ay guushan sugaysay Premier League ciidaha kan waxa weeyaan habeenku wadada guulay ku soo laabteen waxa la yiri Ramsdale adiga ay kacsaday u dulqaado goolhayaha Arsenal runtii wuxuu lahaa maalid taqaana wuxuu lahaa yani aniga Ronaldo fiican baan rabo Cristiano isugu tijaabiyo Ronaldo soo kacsahay yimaada kula soo hurdaayo marraba kulaha maalintii wallahi marka hadla waxaan taqaana muuqaalka dib u raadi war waxaan balaayad kacsanay iska ilaali war odayaashu lama kacsado war yahay balaayaha kacsan balaayu kacsadayo waa ka abeeki isaguna 2 gool baa laga dhaliyay wuxuu yiri taqaana Ronaldo kacsan baan rabo aniga inaan ka hor imaado si aan isu tijaabiyo inaan goolhaye qatar badan ahay kale marka runtii sidaa baana ninka Ramsdale habeenku 2 loogu shubay runtii tabaryarey Arsenal waka waka runtii habeenkuna laga badiyay runtii koox weyn oo iska celi karta malaha ka war 6 sare wariya maalinka Berlin laga horkeena wariya ma Berlin kuna Berlin kaaga wada dhignaa ciday iyo Newcastle man lagaga dhigaya hadiiba kullu weyn ciyaaraysa ma badin kartid Man United kama badin kartid Man United xoogayr caafimaad qabin xataa kama badin kartid kuwii caafimaadka qabi waa kugu farinayeen Lukaku waa ku dardaray City waa kugu fardhisay jawaanka gool maxaa ridaayay yay ahaayeen kuwa kalena waxay ahaayeen Liverpool bay ahaayeen balay wax laga qaban karay yay Arsenal iska celi kartaa marka ciidihiibo Manchester xoogaa yar iska xoogaa jirjiroole idin iska wareersan ba habeen ku sii madax degsatay marka Arsenal tabaryarey waxaana lumisay fursad ay booska afaraad ku gaari karayeen bay lumiyeen Aubameyang ayaa wariyahan waxa lagu leeyahay runtii waxaas uniyo kaas wariyahan ma galay yaaqay arkaas dad ma galo arkaas duurkiisa iska galo hatta duu goolka kortaagay hatta kuwa ka qasaarinaya goolko Aubameyang waa halaabay Aubameyang 0 noqday runtii Odegaard wuu habeen ku noqday ma taqaana from hero to zero noqday runtii runtii marka habeenku waxa uu ahaa habeen yaab labu ahaayo runtii Premier League runtii nimanka ka sida ka ayaa lagu garaacay ilaa Odegaard isaga ayaa ciyaartu bareejay oo 2-2 ka dhigayo goolkii Ronaldo kansalay laakiin wuxuu noqday runtii ninkii ka yimaaday hero ay waxa moogtahay to zero noqday macna from hero to zero ila waki hadana Fred reer ku galay Fred reer ku dhex galay ka war oo hatta hadii la yiraahdo war goolkaas u baleeyahay wax ka qaban karin ayuu isku sii taabtay marka waa from hero to zero laakiin waxa noqday caawa from zero to hero waxa noqday Fred ilan Fred zero ka bilowday ciyaarta ila waa ninkii gool hayi lugta kaga istaagay degay maxaa jifaad leedahay ma taqaana ninka lugu u istaagay meesha lugta saxda dhigay ninka kan Fareyda markaas ku leeyahay Farad idinka Farad idin waala habeenku la kuwa ka yaabi waa 0 to hero noqday sababtoo ah waa ninkii ku istaagay degay markuu ku istaagay waa ninkii caawiyay goolkii Bruno waa ninkii penalty uu keenay anu xadiga garoonkan basi la habeenkuba from 0 to hero noqday kaasna wuxuu noqday from hero to zero Odegaard waliba Arsenal habeenku waa ka lagu baashalay waxa la soo afjiray Man United soo afjirtay 6 kulan kadib guush ugu horeeyay ka gaartay kooxda Arsenal Arsenal Man United way ciibeerabtay caawa 7 ciyaar isku ugu dhigi lahayd oo ay Arsenal guuldar ka soo gaaray Man United maxay leeyahay 6 ciyaar la soo dhaafay labadan ciyaareen Premier League Arsenal marna guuldar kama soo gaaray United waa laga diiday taariikhdu waa saxday maxay lama jir taariikhda in Arsenal 4 ciyaar isku xigta ay guuldar la'aan ku ahaato Old Trafford ma jirtaba hadda ciyaar soo markan ka horeysay waa laga badi waayay balse 4 ciyaar wigid ma dhicin maalir Arsenal oo ay Old Trafford tagtay 4 kulan aan laga soo badin waayin maanu dhicin ba marka Arsenal cidii xariifada isku aheedeen runtii yani isnicbaanadeen reer Fanay bad isgasheen reer warow badnayaal iyo waxa ciyaareen waqti reer Fanay baa ciyaaray kulay Fanay oo ka badiya Arsenal maalinta Jimcaha duurkaaga gal looda raac barihiisa looda iska raac bariyaha isku soo bixiyaan dharka bedelo meelaha soo Arsenal ay maalinta bariya waa lagu ceebeeyay habeenku Manchester ku madax degsatay yaa iska celi karta Arsenal ma horyaalka dhanbaan Burnley kaaga wada dhiga kulay xitaa waxa habeenku yaab ay lahayd mataqana markii tababarihii muxuu yahay kooxda Arsenal Arsene Wenger markii uu horeysay ahayd isagoo Arsenal wada in Man United ay ciyaaro gool ka dhalay runtii waa ninka lagu magacaabo Bruno Fernandes marka kulay على أي حال عدي والله وقال بحي أو ولا جبدي هبين بي واحد كريستيانو رونالدو وعيارتوغي وهوري هيستوريغا سيدت بخل أو جول ولا يحول كيسيا كعديسا كريستيانو مكوبرا معيسا نيكا واتجي وقفكي وهوري وحدكي وهوري رجعة
historiga banoniga 800 oo gool gaara xulkiisii kooxdiisa waa Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro waa tagay ninka kaarunti waa ogaay markuu Messi ninkan ka soo careysiyay inuu jawaan farinayo ya history waxay leedahay taariikhda Ronaldo markii ugu dambeysay sidoo kale kaalinta lixaad Ballon d'Or kaga dhameystay sanadkii ku xigay 60 gool buu dhaliyay Ballon d'Or isaga la siiyay armo odaguna sidaas oo kale u soo rogal celiya 800 oo gool waaxid bini aadan sameeyay buu noqdayo waa aris ka tuuray ciidamada taarunti ya odagu cidii dhan waa kul waa ka soo waayay cidaan Arsenal gool ka helay runtii ya wajils u soo diiday Manchester u soo diiday Liverpool u soo diiday ya Arsenal shanbaal wax laga raadsadaa ma ogtahay ya ficid ka hartan ficid waa ka hartay marada ka dhacday yahu 800 iyo 1 gool waayis wuxuu u dhaliyay sida kan 130 gool oo kamid wuxuu dhaliyay Man United 5 gool wuxuu dhaliyay Sporting 450 wuxuu dhaliyay Real Madrid 100 wuxuu dhaliyay Juventus 105 wuxuu dhaliyay xulka kubadda cagta ee Portugal sidaas ayuu ku yahay 801 gool dhaliyo 190 iyo 9 gool ya ayaa ugu harsan 1 gool oo waayisa ciyaara Allah ilaahi amarkii war waxas ma ciidamadaas ma la haysan karayay waayisa 500 iyo 10 gool wuxuu ku dhaliyay lugtiisa mid gayd 149 wuxuu ku dhaliyay lugta bidixayd 140 wuxuu ku dhaliyay madax ma laga goyna markaan dhigi jiray weeyane 140 gool madax uu ku dhaliyay 2 gool qaybaha kale sinta iyo meel kasta ajar waana history ninka gool uu leeyahay 800 oo gool gaar weeyaan runtii xilli ciyaareedkan 16 ciyaaro meena uu ciyaaray 12 gool buu ugu dhaliyay runtii 6 waa Premier League 6 waa Champions League Cristiano waliga ha ka shakin haddii aad tahay wiil xilligan yani Soomaaliyeed oo Borooniga jecel hadaad tahay haddaad rabto la yaaban tahay wiilkaas leedahay wariyay Ronaldo goormuu 800 oo gool gaaraas leedahay qaacidadeedan ku siinay haddaad rabto inaad Bruno ka gaarto oo aad rabto inaad 800 waayaha Ronaldo kale inaad gaarto haddaad rabto bal qaacidadeeda balaho haddii aad rabto inaad 800 iyo 1 gool aad gaarto waayaha Cristiano Ronaldo haddii aad dhaliso 40 gool 20 sano oo isku xiga waxaad ciyaaru kaga fariisanaysaa adigoo dhaliyay 800 oo gool waayaha ciyaara 40 gool sanadkii dhaliso 20 sano soo aadan 40 gool dhaliso 20 sano soo aadan xiriir ah ciyaaru 800 baad kaga fariisanaysaa aduna 800 200 baad u jirsanaysaa kunka gool ee waayaha ciyaaraha kollay waa kaayo Farid baana qaladkii goolka raw dhaliyay galay ee gool haya waa jiifiye ma jirtay Arsenal gool haya waa naga jiifiye gool miya ma jirtay asaga ninka caafimaadka qabin baa laaday ninka ismid raawi runtii waa ninka ugu goolasho badan Arsenal Premier League xilli ciyaareedkan 5 gool buu leeyahay cunugan bay ayuu ku nooliyay runtii bukaya caawa darba dira maxaa dhacay shoot kuma ma gaarsiineen ba ismid raawi xataa waa daayirka ugu yara Arsenal ee labaad ee Arsenal Premier League gool ugu dhaliyay gagada Old Trafford tan iyo Nicolas Anelka 1999 waliba waxyaabo meesha lagu arko waxa kamid ah xilli ciyaareedkan 7 gool ugu dambeeyay Premier League Arsenal ka dhaliso waxa dhalinay da'yaro 23 sano ilaa iyo wixii ka yarba marka waa ka runtii isugu jira markii ugu dambeeyay haduu soo xiray shabaqa Odegaard ilaa Smith Rawi ilaa Gabriel ilaa Bukayo Saka ilaa iyo Martinelli oguna Solskjaer baa habeenku ciyaarta lagu cimaamadayay oo legend kooda ay u cimaamadayeen maadaama kooxdu laga raacday laakiin waxay leeyihiin waa legend iyadoo raynaga ciyaarta uu daawanay runtii guushii ugu horeeyay habeenka uu kuwa kan la qaybsaday runtii iyadoo walibana rayna uu arkay wiilkiisii hore isagu la soo siixday Smith Rawi oo gool dhalinaya oo ka dhalaya kooxdiisa cusub ileen ninka kan baarigiisa taariikhtirmay tababarnimo ciyaartoy badan la sixday Roba ku jiray Bruno bana kunkiisa boqolaad habeenku ciyaaray si Stelna waa 100 kulan buu meena u ciyaaray ka war tan iyo 2020 markuu bilaabay ciyaarisi ugu horeeyay kooxda inuu ciyaaro waxaan uu ku lug leeyahay Premier League in ka badan ciyaartoy kasto oo Premier League ku jooga tan iyo markaas 78 gool ayuu ku lug leeyahay 44 buu dhaliyay 3 iyo 4 wuu caawiyay runtii waa nin aan caadi ahayn Bruno Fernandes waana ciyaartoy ugu horeeyay Man United oo kooxda Arsenal gool ka dhaliyay weeyaan runtii tan markuu Arteta kooxdan qabtay Man United xataa gool kama dhalin waana goolkiisa ugu horeeyay ninka Fernandes tan iyo 12 September Newcastle baa gool ugu dambeeyay runtii wuxuu soo afjaray 15 ciyaarood oo la soo dhaafay ninkan aanu gool dhalin buu soo yaani ninkan ugu dambeyntii dhaliyay runtii kaarta ka baxay markay rigoradu timad waa la yaabay arrinta ciyaar qaadanaya Ronaldo markay rigor uu qaatay maxay rigoradu isku qabsanayeen kadib tan baati ma diican rigoradaas Ronaldo joogo Bruno turmo tahay markana Bruno baa qaatay Ronaldo qaatay runtii cawdada lama taaba ku riisri waska dhaafi Ronaldo hadii xataa uu shuqlay xataa hadii la bedelo iska xanaaqa ka war wala lama dhaliyaa still tulku wala si ordo micna hadii baraysta wax xanaaqa xor oo toos ka baxaya ka tama fariisanayo hadii la bedelo xataa oo kooxiisu badan laba dhaliya xataa shuqleeyay 800 gool gaar xataa hor ka sii baxaya ka war arrinkaas maxaa ku dabeecad adag yaa qay oo daga seeleeyay waa Ronaldo isaga laga soo gaaray macna kibir iyo mutakabbirnimo isaga laga soo gaaray waxaan Ronaldo musaasal yiraahdo Ronaldo waa isaga Ronaldo uu yahay wana Ronaldo inay arwaa diiqyay meeshan ka socon runtii kollay Bruno Fernandes waa ka ciyaaryahanka ugu horeeyay inuu xataa kulkiisa boqolaad gool ku dabaaldega tan iyo Antonio Valencia oo isna sidaa hadda koor sameeyay kulkiisa boqolaad gool ku dabaaldegay isna aha kollay wayisa boqolka ciyaarood ugu horeeyay 4 buu dhaliyay 3 buu caawiyay ninka kan Bruno Fernandes runtii iyadoo
marka kan habeen qurux badan ay qaateen nimanka kan Red Devil xilli ciyaareedka minad rag ugu goolasho badan taqana waa labada Portugal baa kooxdan u jeediyay Cristiano Ronaldo oo dhaliyay 12 gool iyo Bruno oo dhaliyay 5 gool runtii marka kooxdan Portugaladan bay isaga nooshaa runtii balka waa kaayo habeenkii baa sida ku soo dhamaaday iyo tabintayni tooska ciyaareed Arsenal marka waa kaayo hal kulamada weyn sidan bay ugu ceebaysay inuu cid iska celi karaan malaha oo Manchester tii xataa madaxa xanuunay waa ku madax dagsadeen ya Man United ayaa guush ugu weyn ka gaartay kooxda Arsenal tan January 2019 way ku dhibtoodeen ayaantan Arsenal sidii ugu badin lahaayeen runtii habeenku aad buu qurux badnaayo Ronaldo 800 gaaray Bruno ayaa kulkiisa boqolaad isna ciyaaray Carrick ba isna wayisa tababarnimo ku meel gaar aan wax guul dara qaadan isagoon wax guul dara qaadan buna kooxdii maxariday Man United ma taqaana runtii uu ka baxaya runtii yani hadda shaqaalaha rayna uu ku biiraya kollayba waka ya Manchester magaalka la siiyo Real Arsenal marada ka dhacday araano ya albaabkii xira kuyo ka badiyay ya Arsenal waa ku aqaana waliga ku aqaana habeenku dhahay kala galay oo muhiim ku yar gulay waa laga badi jiray hadda bal habeenku afraad bay gal lahaayeen ka war waa la ka baa garaacayo nabadgeliyo nabad